jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa ayaa soo gabagabaysay tartan aqooneedka garaad Kooriye kaasi oo maalmihii u dambeeyay ka socday xarunta guud ee jaamacaddaasi. Tartankan oo ay jaamacaddu u qabato ardayda sanadka cusub ayaa ah aqoon isweydaarsi, isbarasho iyo sidoo kale sidii ay isku dhaxgali lahaayeen ardayda cusub ee dhigta kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay, iyadoona kuliyaduhu ku tartameen ciyaaro kala duwan sida ciyaarta kubadda cagta, ciyaarta chesta iyo tartan aqoonta maadiga. waxaa tartankan iyo ahmiyadda uu lahaa ardayda cusub ee jaamacadda dhigata ka warbixisay injineer Hoodo oo ah qabanqaabiyaha tartanka garaad Kooriye. markii ugu horeysay inuu kulanna kulay qaybidin kamid ah ku jirta markii ardaydu ay secondary ka soo baxeen ay dooranayeen field selection ama kuliyadaha ay dooranayaan selection kooda ayaa aynu kulannay waxaan ku wada hadlaynay field ugu fiican oo ardaydu dooranayaan waxyaabo ugu doorto. alxamdulillah maanta arday kasta oo fiilkii jeclaa inuu doortay baan rajaynayaa semesterkii koowaadna bartanka kaga jirtaan. barnaamijkan Golis garaad Kooriye waa sanadkii saddexaad waxaana barnaamij lagu talagalay ardayda freshta in ardayda freshta la tuso in programkan iyo programme kale oo badan jaamacaddu ay sanad kasta qabato. kulli programkii ugu horeeyay leedin qaban doona maaha programme kale oo jira jaamacaddu dhan from semester 1 ilaa iyo semester 8 loo qabto oo iyaguna tartanna qayb ka yihiin. intii aanu qabanqaabinay programkan Golis garaad Kooriye 2025 waxyaabo badan oo aan ka fikirinay baa jirta. tusaale ahaan in hablaha kale loo sameeyo chesta qayb gaar ah. unfortunately waan weynay team hablaha oo diyaar u ah inay chesta ku tartamaan. waxaan rajaynayaa sanadka dambe 2026 ardayda freshta inaanu ka helno hablo diyaar u ah inay ka qayb qaataan chesta oo group kaliya inta waxa laga dhigay mix habliyeenooda si gaar ah group kaliya loogu diyaariyo. sidoo kale waxaa jiri doona maadaama markii ugu horeysay programkan loo diyaariyay in hablaha kaliya magaranaysa loo qabto bal tartano sida basketball oo kale ciddiisa haddii jirto iyo waxyaabo kale oo haweenka u xaasan. intaa marka laga yimaado kulli dhiirigelin bay iga tahay aan hablaha ku dhiirigelinayo waayo hadday noqoto kubadda cagta chesta teamku tartamaya badankoodu inay haayeen. waxaan leeyahay hablo ku soo dhawaada jaamacadda mar labaad iyo mar saddexaadba active noqda activity-da jaamacadda aad rabtaan in lagu soo kordhiyo iyo activity-da jaamacadda ku jira marka dhex muuqda. anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada barnaamijkan garaad Kooriye 2025 waxaan leeyahay cid kastoo tartantay way ku mahadsan yihiin, cid kasta oo juhdi iyo dadaal gelisay way ku mahadsan yihiin. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhiinanka directorada iyo dhammaan maamulada kuliyadaha oo iyaguna ku dhiiraday in ardayda ku dhiirigeliyaan inay qayb ka noqdaan tartankan. waxaan leeyahay kulay intii tartantay qayb ka mid ah waxaa la siin doonaa jawaa'is badiyaabo bahdeen sida fuad hore u sheegay. intii badisay waan la farxaynaa. intii aan ku guulaysanin maanta waxaan leenahay kulli sanadkan dhexdiisa waxa jiri doona program weyn oo jaamacaddu dhan ay qayb ka noqon doonto. taa way uga soo dhex muuqan doontaa insha Allah. kulli intaas ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay soo dhawaada badiyaabo bahdeen aad baad mahadsantihiin dhammaan dhiinanka iyo guddigii qabanqaabada ee igala shaqeynaysay barnaamijkan. ugu dambeynna jaamacadda ayaa abaalmarino kala duwan guddoonsiisay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartankani.